بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشينا قيمها إيو قايحان أغمضان نلا سعودة برتنا يوتيوبكا تجر وكاش أونلاين أكاديمي مركلي ومركلة واحد كسوري باتان كورس كيني أها new concept English بوغيسا كوات first thing is first lesson 18 cashirka 18 ayaan maanta qaadanaynaa. Waxaan filayaa 17 cashir ee hore inaad markaas si fiican u soo fahantay haddii aad hore u soo daawatay. Haddaadan hore u soo daawan waxaad ka daawan kartaa barteena YouTube-ka ee Tijaro Cash Online Academy. Sidoo kale waxaad cashiradeena la socon kartaa baraheena Facebook iyo TikTok ee Tijaro Cash. waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa haddii ay ku tahay markii ay kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena inaad subscribe noo saartid, muuqaalkan aad like saartid oo aad noo share garayso asxaabtaada. Hagaag cashirkeena maanta waxa uu ka hadlayaa our village xaafadeena. Qof ayaa waxa uu markaasi ka warbixinayaa xaafadooda. Wuxuu leeyahay this is a photograph of our village. kani waa sawir muujinaya xaafadeena. Our village xaafadeena is in a valley. waxa ay ku taalaa dooxad dhexdeeda. xaafadeena waxa ay ku taalaa dooxad dhexdeeda. macnaha waxay ku taalaa meel god ah weeye. It is between ayadu waxay u dhaxaysaa xaafadeena two hills. labo markaasi buurood ay u dhaxaysaa. The village xaafada is on the river. waxay saaran tahay dhinaca weliba webiga. Here is another photograph of the village. kanina waa sawir kale oo markaasi ka tarjumaya xaafada. My wife xaaskayga and I iyo anigaba are walking. waxaan markaasi oo aan ku socdaalaynaa along the banks of the river. jiinka webiga ayaa markaasi socod ku maraynaa aniga iyo weliba xaaskayga. We are on the left. anagu waxaynu maraynaa markaasi dhanka iyo markaasi bidixda ee markaasi webiga. There is a boy. waxaa ku jira markaasi wiil and the river in the water biyaha dhexdiisa. biyaha waa markaasi biyaha webiga. He is canuga oo markaasi biyaha ku jiro is swimming. wuu markaasi dawaalanayaa across the river. webiga dhexdiisa ayuu markaasi ku dawaalanayaa wiilkaasi. sidoo kale wuxuu leeyahay here is another photograph. sidoo kale kanina waa sawir kale markaas ka tarjumaya xaafadeena. kani waa wuxuu markaasi sawirka saddexaad weeye. wuxuu leeyahay kani waa the school building. waa dhismaha markaasi iskuulka. isagu waxa uu markaasi it is beside a bag. waxa uu markaasi ku dhagan yahay beside. wuxuu ku dhagan yahay backinka ama darajinka. bag laba loo fasiri karaa. meesha markaasi backinka mar wuxuu noqon karaa meesha backinka ah, marna markaasi wuxuu noqon karaa meesha markaasi darajinka. The bag meesha markaasi darajinka ama meesha oo backinka ah is on the right. wuxuu jiraa dhankiyo midigtuu jiraa isagu. Some children xoogaa markaasi caruura are coming out. waxa ay ka soo baxayaan are coming out of the building. xoogaa caruur ah waxay markaasi ka soo baxayaan dhismaha waa markaasi dhismaha iskuulka ay markaasi ka soo baxayaan. Some of them qaar ka mid ah ayaga waa caruurta weeye.
ee ka soo baxaya dhismaha iskuulka qaar ka mid ah iyagu are going waxay markaas u socdaan into the back meesha markaasi darjiinka oo lagu nasto ay markaasi u socdaan. waxaan filayaa inaad cashirkani aad wax badan ama si wacan aad markaasi ugu fahantay. waxaan ka rabaa marka inaad qaybta commentiga aad ku soo qortid xaafadeena waxa ay dhacdaa badda dhinaceeda markaasi midig. xaafadeena waxa ay dhacdaa badda dhinaceeda midig. waxaan filayaa inaad muuqaalkani aad wax badan ka faa'iiday. waxaana kaa codsan inaad muuqaalka like inoo saartid wixii tale iyo tusaalana aad markaasi noogu reebtid qaybtiyo commentiga. inta ka kulmi doono cashirkiisa xigana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadiino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.